xildhibaan Axmed Jaamac oo ka tirsan golaha baarlamaanka degmada Geneva ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka degmada Geneva ee dalkan Switzerland. Axmed Jaamac oo ka tirsan xisbiga Soosyalistaha ee garabka bidixda ee dalkan Switzerland ayaa sanado badan waxa uu ka mid ahaa baarlamaanka degmada Geneva oo ah kan labaad ee ugu awoodda badan wadankan Switzerland. Haddaba xildhibaanka oo aan wax ka weydiiyay doorashada loo doortay gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka degmada Geneva ayaa waxa uu ku jawaabay waa mahadsan tahay. horta baarlamaanka sidaad og tahay shuruucdu sameeyaa, miisaaniyadu ansixiyaa, dowladdu la xisaabtamaa. shaqada baarlamaankuna waxay ku salaysan tahay guddiyo shaqaynaya. guddiyadaas ayaa projectyadii iyo mashaariicdii iyo qaanuunkii kasoo shaqaynaya, kadib baarlamaanka la keenaya, baarlamaanka lagu ansixinaya. baarlamaanka Geneva wuxuu ka kooban yahay 14 guddi. anu laba guddi ka mid aan kaga jiraa oo guddiga ugu muhiimsan ay tahay guddiga dhaqaalaha. runtiina waa guddiga ugu awoodda badan. guulna ay tahay inaan anigoo Afrika ka soo jeeda aan ka mid ahay oo dhaqaalihii Geneva oo dhan aan ka mid ahay 15 xubnood ee go'aanka ka gaarayay. guddi kasta waxay leedahay gudoomiye ku-xigeen. isbuucan hadeer aynu ku jirno talaadadii la soo dhaafay waxaa la doortay gudoomiyihii oo xisbi ka socda. waa in laba xisbi ka kala socda, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. taas ayaa keentay markii gudoomiyii la doortay in anigu ismaan soo sharaxin, aniga laysoo sharaxo. taasna waxay sii cadaynaysaa kalsooni, sababtoo ah dadku iyaga soo sharaxa oo loobi u sameeya. marka in la yidhi kaalintii Axmed ka qaatay maxaa la yiraahdaa miisaaniyadii iyo doodihii iyo waxaas oo dhan waxay muujisay inuu awood u leeyahay inuu xilka buuxiyo. sidaas ayaa keentay in la doorto gudoomiye ku-xigeenkii guddiga dhaqaalaha oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. aan ku faraxsanahay. dhanka kale xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in qaar ka tirsan mudanayaasha xisbiga uu ka tirsan yahay ee SP ay ku riixayaan in uu ka qayb galo doorashada guud ee baarlamaanka gobolka Geneva. ilaa hadeer xilku wuxuu iga dhamaanaya 2025. 2023 waxaa loo tartami doonaa golihii baarlamaanka ee gobolka Geneva. sidaa darteed adigu hadeer wada hadalaa socdo oo dhowr qof oo aan aad isugu fiicanno xisbiga ayaa raba inay igu riixaan inaan ka qayb galo, inkastoo anigu aan raba inaan dhammaysto xilkan maxaa la yiraahdaa baarlamaanka ee gobolka maxaa la yiraahdaa Geneva, degmada Geneva. sidaad og tahay Geneva waxa weeyaan mar haddii dalkan uu federaal yahay waa gobol Geneva, stateki Geneva iyo stateka Geneva oo ka kooban 45 maxaa la yiraahdaa degmo. iyadoo sidaas stateki Geneva isagoo jira ayaa haddana waxaa jirta magaaladii Geneva ama degmadii Geneva oo ah magaalada labaad ee Switzerland ugu awoodda badan. baarlamaankeeduna uu yahay baarlamaankii labaad ee ugu awoodda badnaa. sidaas darteed bay dadku markasta waxay isku khaldaan Axmed waa baarlamaanku ku jira ama baarlamaanka stateka Geneva ku jira mise degmada Geneva. marka waxaan u cadaynayaa dadka waxaan ku jira degmada Geneva ayaan ku jira baarlamaankeeda oo ah baarlamaankii ugu muhiimsanaa laftii oo kii labaad ee Swiss-ka ah. si kastaba ha ahaatee Axmed Jaamac Football ayaa ah Soomaaliga kaliya ee ka tirsan baarlamaanka degmada Geneva ee wadankan Switzerland. Cabdiqani Cali Dalmar, warbaahinta qaranka, Geneva, Switzerland.